kormeerkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagay xarunta guud ee bisha cas ee caasimadda Hargeysa ayuu ugu kurgalay sida habsamida ah ee ay u socoto adeegyada xarunta lagu bixiyo waxaanu madaxweynuhu goobgoob u dul istaagay qaybaha kala duwan ee bixiya adeegyada loogu gargaarayo bulshada naafada ah ee gacanta bini'aadanimo u baahan maamulka gacanta ku haya xarunta bisha cas ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga waramay adeegyada ay bixiyaan iyo guulaha ay ka gaadheen inta kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay madal lagu xusayo aasaaska bilaha iyo laanqeyraha cas oo ay ka soo wareegtay 155 sanadood madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa bahda bisha cas ku bogaadiyay hawlgallada bini'aadanimo ee u qabtaan qaybo kamid ah bulshada reer Soomaaliland aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa anagu mahadnaqaynaa bisha cas caalamka guud ahaanba hawlaha u qabtaan ee samafalka ah ee ay u adeegaan dadka nugul waxa kale oo hambalyeynayna dhalinyarada faraha badan ee dhowrka ku gaaraysa reer Soomaaliland ee dalkooda tabaruca ugu shaqeeya bisha cas dhaqaalaha ay ku socoto iyo mashiinada dadkeena taagta daran u shaqeynaya dhaqaalaha ku baxa waxa keena dad inala mid ah oo dalkooda u shaqeeyay dhaqaalihii dheeraadka ahaa ayaa inaga sadaqa inoo siiya mustaqbalka fog waxaynu doonaynaa inaanu ka baxno sadaqada oo anigu aanu bixino waan ku faraxsanahay dhalinyarada u shaqeysa bisha cas kuwa kale oo dhan saasan ka rajeynaya inay dalkooda tabaruc u shaqeeyaan bisha cas maalintii la furayay oo halkan hool qura ahayd oo cali jirda furayay iyo maanta oo muddo dheer ka soo wareegtay oo laga yaabo dhalinyarada shaqeynaysa badankooda inaan dhalanna goob joog baan u ahayn waxaan ku bogaadinayaa horumarka ay ka sameeyeen Hargeysa iyo inta laamood ay fureen iyo qalabka ay keeneen iyo hawsha ay qabtaan bisha cas waxaan ogaynaa ka shaqeysaan caafimaadka inaan naafada u shaqeysaan inaan beeraha ka shaqeysaan inaan biyaha ka shaqeysaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay horumarka lagu xusuusan doono adeegyada bisha cas ay ka hirgelisay jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay ka hawlgalaysay waxa xusuus dheeraad mudan oo bisha cas qofkii maalin u shaqeeyay iyo qofka cimrigiisa soo shaqeeyay loogu mahadnaqayaa oo aad u xusuustaa markii uu ka dhacay shubiyadku magaalada Burco hawshii ay galeen bisha cas haddii aanay jirin masiibadii si looba kantarooleen aad iyo aad baan u mahadnaqayaa xagga dawladda wixii ay uga baahdaan diyaar baan u nahay mar aliya markii la isu baahdo hawliinu waa degdeg waa samafal diyaar baan u nahay habeen bad aroor galab marka doontaanba wasiirka caafimaadka Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa madasha ka hadlay waxaan madaxweyne doonayay inaan xuso bisha cas inay lafdhabar ka tahay xagga adeega caafimaadka gaar ahaan waxaan soo aragnay warshadii iyo qalabkeena soo aragnay ka sokow gurmadka degdega ah markay timaado ama shubbiyood ha noqoto ama xanuuno kale ha noqoto dilaaca qayb weyn ka ciyaaraan waxa kale oo jirta in dhowr iyo 30 xarumood oo gaar ah wasaaradda caafimaadku leedahay inay bisha cas ay taakulayso waa la fadhabar weeyaan xagga caafimaadka marka la eego gudoomiyaha bisha cas ee Soomaaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaa sharaxay in 155 sano laga joogo markii dhidibada loo taagay bilaha iyo laanqeyraha cas waxaanu dul istaagay waxqabadkooda iyo halku dhiga sanadkan ay liishaan ka saari doonaan ururka bisha cas Soomaaliland hawlaha uu qabto waxa ugu horeeyo xagga caafimaadka iyo nutritionka waxa kale oo ka shaqeeya xagga naafada oo adeegideeda wuxuu ka shaqeeyaa xagga wax la yiraahdo community resilience ama in baahiyaha bini'aadamka dadweynaha community kasta wax laga qabto meel walba hawl caafimaad ayaanu ka wadnaa hawl biyaha abaanu ka wadnaa hawl naafada loogu adeegayaanu ka wadnaa laanqeyraha cas maanta waxa kamid ah 119 dal halku dhagu waxa weeyaan in qof kasta oo baahan loogu taga meesha uu joogo jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kormeerada uu ku galaabixiyo adeegyada arrimaha bulshada goobaha lagu qabto ayaa ah mid xukuumaddiisu ay ku dhiirigelinayso in bulshadu ay guulo nololeed ku talaabsadaan Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa